horumarada dal ama magaalo ay ku tallaabsato waxaa udub dhexaad u ah kaabayaasha dhaqaalaha oo kora sida dhismaha waddooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaraduhu ay isaga gooshaan intaasoo dhan waxaa kulansatay magaalada muqdisho oo muddooyinkii la soo dhaafay ka soo kabanaysay burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee ay soo martay magaaladan degmooyinkeeda iyo deegaanadeeduba muqdisho waxay u dhismaysaa qaab ka duwan kana dhaqsiyo badan siday u dhismaan magaalooyin badan oo ku yaala gobolka geeska Afrika goobaha sida xooggan u dhismaya ee magaalada waxaa ka mid ah deegaanka Daarusalaam oo asaaskeedu ahaa 2015 laakiin hadda oo ah 2024 isu rogtay ama isu bedeshay degmo dhammaystiran ku soo dhawaada degmada Daarusalaam Daarusalaam State sida hore ugu sheegnay sayid cusub oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho Daarusalaam State waxay ka kooban tahay sayid fara badan oo hore u develop gareynay ayaa jira sida Banana State Orange State Lemon State Tufaax State Saytuun State Manga State Medina State Makkah State qofka Daarusalaam degay wuxuu ka heli karaa adeegyada bulshada sida iskuulkii oo bridge curriculum ah ay la socoto Islamic study sidoo kale shitaal weyn oo ugu talagalnay bulshada Daarusalaam iyo nawaaxigeeda degan sidoo kale waxay leedahay playground carruurta ay ku ciyaaraan oo family-ka dhan ay ka faa'iideysan karaan entertainment-gaas sidoo kale wuxuu leeyahay suuq weyn oo leeyahay iyo supermarket meesha ku yaala oo supermarket la yiraahdo Baraka Mall sidoo kale wuxuu leeyahay masaajid weyn xaafadaha sida waxaan loo diyaariyay ee ku yaala deegaanka Daarusalaam waxaa ka mid ah Mumtaz State maadaama baahida bulshada aad ay u badatay iyo guriyeynta ay aad u badatay dadka soo laabanaya qurbaha ka imaanaya iyo dadka gudaha jooga ay rabaan meel ay ku nafistaan oo magaalada ciriiri ka jiro waxaan develop gareynay haddana inaan state kale aan ku darno oo la yiraahdo Mumtaz State Mumtaz State waa state-ka ugu ballaaran ee abid laga dhisay Daarusalaam waxyaabaha uu uga fiican yahay siyadii hore waxaa ka mid ah design-ka waa modern guryo ah oo kor shubka ka ah gudihiisana aad ka helayso wuxuu leeyahay day zone iyo night zone uu leeyahay meel maalintii ay joogaan dadku sida maxaa la dhahay jikadii iyo fadhigii iyo qayb ah iyo barantadii iyo habeenkii gurigii loo hoyan lahaa Daarusalaam State laba teeb ayay ka kooban tahay laba guri teeb A iyo teeb B Mumtaz teeb A waa guri weyn oo ka kooban 6 qol oo jiif ah fadhi iyo qado 3 musqulood iyo kushiin iyo laundry badka uu ku fadhiyo waa 6 kilometer square iyo parking ay geli karto 5 power iyo garden sidoo kale Mumtaz B waxay ka kooban tahay 4 qol oo jiif ah 3 musqulood fadhi iyo qado jikadii iyo laundry barandadii parking 3 power geli karto iyo garden badka uu ku fadhiyo waa 3 kilometer square state-dii hore wuxuu uga duwan yahay Mumtaz State wuxuu leeyahay masaajid weyn oo ka dhismaya 2 block wuxuu leeyahay qayb madrasada carruurta waliba gabdhaha taxfiidka quraanka oo la calaan ugu dhigan doona hadii alaymo sidoo kale wuxuu leeyahay garden dadku isugu soo bixi karaan ay ku socon karaan ku lugeyn karaan waqti ku qaadan karaan ku nasan karaan sidoo kale wuxuu leeyahay wado weyn oo 2 khad ah oo laami ah insha Allah taala waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan inay ka faa'iideystaan mashruucan Daarusalaam State gaar ahaan Mumtaz State oo hadda xarig aan ka jari doono guriyada dhamaadeen insha Allah taala dhismuhu mar dhow soo gabagaboon doono oo la bilaabi doono iibka guryaha hadii alaymo dad badan ayaa isliis gareeyay oo liiska ku jira waxaan rajaynaynaa in la xiriirna xafiisyadii sida xafiiska Daarusalaam iyo Salaam Somali Bank mashruucan waxaa develop gareynaya oo hormariyay oo maalgeliyay oo adigana ku maalgelinaya Salaam Somali Bank waxaan dhisaya oo fulinaya mashruucan oo design gareeyay oo develop gareeyay company-ga ugu weyn Soomaaliya dhismaha Bruce Construction Company guryahan waxa ku qaadan doontaa 5 sano oo muraabaxa ah installment plan oo bankiga aad u yeeran doonto slogan-keena ahaa daar ku yeelo Daarusalaam adigoon dareemin daar ku yeelo Daarusalaam insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad ka heli doonto environment-ga iyo deegaanka iyo design-ka iyo qiimo ku raadi gelin doona waxaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaynaa meel walba ay joogaan inay ka faa'iideystaan